bismillaahi raxmaani raxiim. habeen wanaagsan daawadayaal, qodobada wararka TV caawa idin haya waxaa ka mid ah booliiska Kenya oo xiray qaar ka mid ah xawaaladaha Soomaalida ee ku yaala Kenya. ujeedada intee lag ay ka leedahay culayska siyaasadeed oo ay saarayso Soomaaliya. wasiir ka tirsan xukuumadda Kheyro oo ka tagay qadiyadii Soomaalinimo isuna bedelay ajaanib. farmaajo iyo Kheyro oo bilaabo qorshe cusub oo xilka ay kaga qaadayaan madaxweyne Xaaf iyo madaxweyne Axmed Madoobe oo la kulmay wafdi ka socda Midowga Afrika oo gaaray Kismaayo. wararka dibadda, wararka TV caawa idin hayna daawadayaal waxaa ka mid ah madaxweyne Trump oo mid ka mid ah kaaliyaashiisa hore ku amray arrin muran badan ka dhalisay Mareykanka iyo dumarka reer Tanzania oo ganaax lacageed ku mutaysanaya haddii ay ku dhalaan guryaha. daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan. haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena cusub ee barta YouTube-ka si aad u heshid wararka iyo warbixinada quseeya Soomaaliya iyo caalamka, fadlan rukuma barteena YouTube adigoo subscribe dhahaya. booliiska Kenya ayaa xiray qaar ka mid ah xawaaladaha Soomaalida ee ku yaala magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. wararka aanu ku helayna magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in booliiska Kenya ay xireen qaar ka mid ah xawaaladaha Soomaalida ay ku leeyihiin dalkaasi. booliiska Kenya ayaa xiray ilaa iyo 5 xawaaladood xarumahooda ay ku leeyihiin magaalada Nairobi, kuwa oo iyagu shaqadooda caadiga ah watay laguna wargeliyay inay xiraan goobahaasi. qof ku sugan magaalada Nairobi ayaa warbaahinta u xaqiijiyay inuu doonayo inuu lacag ku soo dirsado xawaalada Tad, balse loo sheegay inaysan shaqaynin xawaaladaasi oo ay xireen ciidamada booliiska. wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in xawaaladaha booliiska Kenya ay xireen ay ka mid tahay xawaalada Amal oo xarun ku leh magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Kenya ayaa dib u soo cusboonaysiisay xiisadda siyaasadeed oo labada dal horey uga dhaxaysay, inkastoo arrimahaasi la xaliyay. haddana Kenya lama oga dagaalka cusub waxa ay uga gol leedahay. wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa qadiyadii Soomaalinimo ka tagay iyagoo isu bedelay ajaanib. 3 wasiir iyo la taliye sare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa isu rogay ajaanib kadib markii loo diiday inay galaan magaalada Nairobi iyagoo la soo baxay baasaboorro dalal kale ah oo ay wateen. wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan ayaa noqday Canadian. wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur ayaa isu rogtay Talyaani, halka la taliyaha amniga madaxweynaha Cabdi Saciid Muuse uu noqday Hollandees. 3 xubnood ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiin 6 xubnood ah oo dawladda Kenya ay xalay u diiday in baasaboorradooda Soomaaliga ah u saarto fiisaha dalkaasi markii ay tageen Nairobi, ha yeeshee isku rogay ajaanib iyagoo la soo baxay baasaboorro dalal kale. 3 xubnood ee kale oo kala ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Cusmaan Libaax Ibraahim iyo Samsam Daahir iyo Senator Ilyas Cali Xasan oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo watay baasaboorro Soomaali ah ayaa xalay ku bariyay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Jamaal Maxamed Xasan, Fawziya Abikar Nuur iyo Cabdi Saciid Muuse ayaa galay 2 qalad oo ay ka muuqato wadaniyad la'aan iyo nafjeclaysi. waxay ka tageen qadiyadooda haddii Kenya ay fiisaha u diiday baasaboorrada Soomaaliga waxa ahayd inaysan adeegsan baasaboorro dalal kale oo ay sharfaan kan dalka ay matalaan, kuna adkaystaan in dalkooda ku laabtaan haddii Kenya ixtiraami weyso kii wadankooda. xasuusnaaw ma ahayn dad safar shakhsiyadeed ku socday, balse waxay u socdeen safar iyo shaqo dawladeed. 2 waxay cidleeyeen saaxiibadood, waxayna meel cidlo ah uga tageen saaxiibadood iyo walaalahood Soomaaliyeed ee aan haysan baasaboorrada ajnabiga ah, umana muujin wax taageero ah. waxay ahayd in ay garoonka kula baryaan oo ay ku adkaystaan in ay wada joogaan ama ay wada galaan gudaha dalka Kenya. si kastaba, Jamaal Maxamed Xasan, Fawziya Abikar Nuur iyo Cabdi Saciid Muuse ayaa waxa ay u adkaysan waayeen inay hal habeen baryaan garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta. taa beddelkeedana waxa ay hal habeen ay seexdeen hotel ay ka jeclaadeen qadiyadooda iyo saaxiibadooda. madaxweynaha Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa magaalada Kismaayo kula kulmay wafdi ka socda Midowga Afrika oo gaaray magaalada Kismaayo. Axmed Madoobe iyo wafdiga Midowga Afrika ka socda ee gaaray Kismaayo ayaa ka wada hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka la filayo in bilaha soo aadan ay ka dhacaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. waxaa magaalada Kismaayo gaaray madaxa ugu sarreeya ciidamada AMISOM Ambassador Francisco Madera iyo taliyaha guud ee ciidanka AMISOM Tigabu Yilma oo ah nin u dhashay dalka Itoobiya. waxaa madaxda garoonka diyaaradaha ee Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo xubno ka tirsan maamulkiisa.
wafdiga gaaray Kismaayo iyo Axmed Madoobe ayaa yeeshay kulan xasaasi ah oo ka dhacay madaxtooyada magaalada Kismaayo. madaxda AMISOM oo kulanka kadib shir jaraa'id qabtay ayaa waxa ay sheegeen inaanu jirin isbedel lagu sameyn doono qaab dhismeedka ciidanka AMISOM ee ku sugan gobolada Jubbooyinka. sidoo kale waxa AMISOM shirka jaraa'id ay ku sheegeen inaysan wax faragelin ah ku sameyn doonin doorashooyinka dhawaan ka dhici doona magaalada Kismaayo. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli la faafiyay in garoonka diyaaradaha ee Kismaayo lagu wareejiyay ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa waxa ay saldhig ku leeyihiin kontaroolka looga baxo magaalada ee aada dhinaca wadada Goobweyn. ciidamadaasi ayaa waxay hoos tagaan ciidamada AMISOM gaar ahaan sektor 2 waxaana taliye u ah jenaraal u dhashay dalka Kenya ka oo saldhigiisu uu yahay deegaanka Doobley. qiyaas ahaan ciidanka Itoobiya ee halkaasi ku sugan ayaa gaaraya 240 askari oo lagu bedelay ciidamada Sierra Leone ee sanadkii 2015 laga saaray Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ayaa bilaabay qorshe cusub oo xilalka looga qaadayo madaxweynaha Galmudug Xaaf. xukuumadda Soomaaliya ayaa bilowday qorshe cusub oo doorasho lagu qabanayo deegaanada maamulka Galmudug dhamaadka sanadka 2019 oo ku eg muddo xileedka sharciga ah ee madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. shabakada wararka TV ayaa ogaatay in xukuumadda Soomaaliya ay la heshiisay isla markaana ay lacag badan ku bixisay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu tahay Galmudug si ay go'aan uga gaaraan doorashada Galmudug. xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana deegaan doorashadoodu ay tahay Galmudug aadna ugu dhow xukuumadda Soomaaliya ayaa shir la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxayna ku heshiiyeen in xildhibaanada ay shiraan kadibna ay go'aan ka soo saaraan xaaladda Galmudug. xubnaha xildhibaanada oo aad ugu dhow ra'iisul wasaare Khayre isla markaana la dhacsan sida uu wax ku wado ayaa abaabulaya kulamo ay yeelanayaan xildhibaanada labada gole ee ka soo jeeda Galmudug waxayna wadaan qorshe madaxtooyada lagu soo dhiibay oo ah in meesha looga saaro madaxweyne Xaaf lamana oga sida ay ku suurtagali doonto arrimaha oo hadda ka socda filla Soomaaliya. xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo waraysi uu siiyay shabakada wararka TV ayaa sheegay in barnaamijkan uu ka socdo Muqdisho isla markaana ay qayb ka yihiin madaxweyne ku-xigeenka Galmudug iyo gudoomiyaha baarlamaanka isagoo ka digay cawaaqibka ka dhashay shirka Galmudug ee Muqdisho lagu abaabulayo. wararka dibadda wararka TV daawadayaal caawa idin hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa mid ka mid ah kaaliyaashiisii hore ku amray arrin muran badan ka dhalisay wadanka Mareykanka. aqalka cad ee Mareykanka ayaa amray in mid ka mid ah raggii hore ugala soo talin jiray dhanka sharciga uusan hortagin guddiga aqalka Koongareeska waase haddii uu ka hadlo wax ku saabsan baaritaanka uu wado Robert Mueller. guddiga cadaaladda uu hoggaanka u hayo xisbiga dimuqraadiga ayaa soo saaray amar sharci ah oo ay ku dalbanayaan in Donald McGahn uu hor yimaado Talaadada. mid ka mid ah xubnaha guddiga ayaa sheegay in haddii uusan Mr. Ghan hor iman guddiga ay markaasi bixin doonaan amar baaritaan loogu soo sameynayo in madaxweyne Trump uu u qalmo in xilkaasi laga qaado. dumarka reer Tunisia oo ganaax ku mutaysanaya inay ku dhalaan guryaha. dumarka ku sugan waqooyi galbeed ee dalka Tunisia ee aan ku dhalin xarumaha caafimaadka ayaa lagu ganaaxayaa $9 ilaa $22 sida uu ku waramayo wargeyska gaarka loo leeyahay ee The Citizen. wargeyska ayaa sheegay in dumarka lagu qasbo in ay ganaaxa bixiyaan marka ay xarumaha caafimaadka u doontaan adeegyada kale sida tallaalka carruurtooda. goobaha la magacaabay waxaa ka mid ah degmada Kibonda oo ka tirsan gobolka Kigoma. wargeyska Citizen ayaa ku waramaya in kusimaha madaxa caafimaadka ee degmada Kibonda uu amray in ganaaxa dumarka la joojiyo ama tallaabo laga qaado waxaana qofka dumarka ee gurigiisa ku dhala laga qaadayaa lacag dhan 20,000 oo shilinka dalkaasi oo u dhiganta $9 ilaa $50,000 oo u dhiganta $20. guud ahaan daawadayaal warkii waad kala socoteen wararka TV caawa waa naga inta.